السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلوك سودو يوتيوب كنا تيجي زاكو أوفيشال. هدي أدنو عصبتها ولا سبسكرايب مسار. قبل لك نفرصية نقطة دعوة أو بحرية. ولا لكو سودو شكدي محاينة خرصون. وحتى هرول سوسعتين قيبتي جدعتي شكذا. هاتن waxaa gali doona qaybtii afraad ee shakada hadii aan wax idin ka xasuusiyo qaybtii saddexaad ee shakada qiyaas ma lahayn dareenka cabsida ee la soo darisay labadooda laakiin markii ay cabaar u jireen ayuu ku yiri istaagay way istaageen kadib wuxuu amray inay wixii qalab ah ee ku jiri gacantooda inay meesha dhigaan way wada dhigeen kadibna wuxuu ku yiri ka dhaqaaqa way yeeleen sidoo amray kadibna wuxuu aaday dhankii ay qalabka dhigeen kii xadig lahaana garabka ayuu surtay sida kaamirada intii kalena gacanta bidix ayuu ka buuxsaday xilligaas labadoodu way sii jeedeen oo xitaa dhankiisa ma soo jilaaci karaan waayo amarka oo ninkiisii ayaa sida ahaa halkaas waxaa inooga ekaay qaybtii saddexaad ee shakadii la magac baxday maxaa inaga qarsoon haatan ku soo dhawaada qaybtii afraad ee shakada markii uu wada urursaday ninkii reer miyiga u ekaay dhammaan qalabkii uu ka dhigay wariyihii iyo warqaadihiisii ayagana uu ku amray inay istaagaan oo ay u dhaqaaqaan xagga sare ee buurta oo ka dhigneed inay ku laabtaan halkii ay ka soo degeen markoodii hore wayna qaateen amarkaas ayagoona marna dib soo eegin laakiin wax yar kadib markii ay u soo dhawaadeen xagga sare ee buurta ayaa waxaa muusiga hoose ka baxay jeebka bidix ee wariyaha waa mobilkiisii oo ruux soo wacay wuxuu wariyihii la aaday gacantiisa jeebka si uu u soo saaro oo lana hadlo cid soo garaacday xiligaas hase yeeshee xoriyadaas ma uusan haysan oo markiiba waxaa ka yiri talka ninkii uu hoggaansanay wuuna kala wareegay isagoo ku jiray talka ruux soo garaacay oo aan la ogin qofku uu ahaa iyo wuxuu damacsanaa dhawaqa taleefankaas waxaa isna ku xasuustay sawir qaadihii oo bilaabay taabasho iyo baaris jeebkiisa ah laakiin xaqiiqadu waa inuu soo lumo oo intuu istaagay mar qura gadaal u soo jeestay yiri alla mobilkii baan ka soo tagay waxay argagax ku noqotay ninkii labadooduba awood ama qasab ku hoggaansanayay oo gadaal kala socday qori amaanka u jaran yahay inta uu booday ayuu la wax badood ku riday hal mar dhanka sawir qaadihii allah wuu garab mariyay laakiin ciidii ay fardhisay rasaastaas ayaa af iyo indhaba ka wada gashay oo intuu qeyliyay markiiba ku noqday digtoonidiisii la geliyay siina wata socodkiisii oo ku qasbanaa bar kadib oo ay dusha buurta si dhameystiran u gaareen ayay eegeen halkii ay ku ogaayeen saaxiibkood darawalka ahaa ee ku sugayay halkaas nasiib daro ma aysan arag qof ama gaarin midna way tacjibeen nibba kan kale ayuu hadal la'aan eegay ayagoo isla marxaladaas ku jira aaminsanna in hoos looga dejin doono buurta ayaa mar qura lagu amray inay raacaan dusha buurta oo dhinaca qorax u dhaca oo ka xigay midig weyn dhaqaaqeen waxayna damceen inay dhahaan sabab laakiin looma saamixin xilligii uu sii gaabtay qiyaas ahaan waa 5:15 ilaa 5:50 galabnimo xoogaa markii ay sii socdeenba wuxuu ninkii amray istaaga way istaageen wuxuu yiri meel cidif ah jilbaha dhiga wayna yeeleen weli looma ogola inay soo jeestaan mana fahmi karaan gadaashooda wax ka socday mid walba quraan iyo adkaar ayuu hoos u akhrisanay cabsidu inay isii tartamooyay marna xagooda isma aysan dhimin kadib wax daqiiqado ku siman ayay maqleen wax laba cod oo wada hadlaya oo u eg hadal masaafo ahaan ka yara durugsan ma ahayn hadal fasiixa ay fahmayaan laakiin waxay dareemi kareen in la weeliyo ninkii ayaga soo qafaashay wariyihii ayaana ku yiri saaxiibkii tartiib gadaal ma u fiirin kartaa sawir qaadihii ayaa yiri may saaxiib wariyihii ayaa ku adkaystay inuu ogaado wax gadaashooda ka socdo si feejigan oo dadab ah ayuuna u eegay mucjisadana waxay ahayd cidna ma aysan qaban indhihiisa oo intuu markaas si dhameystiran u eegay markuu wax arki waayay ku yiri saaxiibkii oo forora gacmaha madax u saaran yihiin ahna dabtii lagu amray soo fiir saaxiib cidnana lama joogto sawir qaadihii oo qaadan lahaa hadalkaas ayaa si taxadar leh u soo eegay gadaal oo waarun cidna kama muuqato dhabarkooda cajiib markiiba waxaa ka baaday cabsidii in gadaal laga tooga raba ahayd ee ilaa galabta ku jirtay labadooda isla markaana walaac xagga qalabkoodii ah baa ku wada dhashay jilbihii bay dhulka ka soo qaadeen oo ciidii bay iska jafeen waxay si wada jir ah u soo aadeen dhankii uu ka taagnaa ninkii waday si ay u hubiyaan bal halkuu maray ninkaas laakiin markay u soo dhawaayeen ayaa ruux aysan horay u arag
labisan dhar tuuta ciidan ah ku soo baxay. Qofkaas waa nin ugu yaraan dhexdhexaad ahaa, xooggan, sinta midig ku siita biskoolad, gacanta bidixna caag biyo ah. Waa qof muuqaal ahaan Soomaali ah, laakiin garabka wax qori ah kuma sidan xilligaas. Labadoodiina baxsadkoodii iyo orodkoodii aan fariir ayuu la hakaday. Walaal waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii qaybtii afraad ee sheekadii la magac baxday maxaa inaga qarsoon. Qaybtii afraad ee sheekada waxaa inooga dhashay 5 su'aalood. Mid koowaad haddii aan ku horeyno, muxuu noqon karaa ninkan? Maxayse isdhaafsadeen haddii ayba wada hadleen? Midda labaad waxay tahay marxalad noocee ah bay galeen? Haddii aan midda saddexaad sii guda galno, xaku gaarigoodii iyo wadihiiba ku dambeeyay. Midda afraadna maxaa la yaab ah oo kale baa soo wajahay labadaas ruux. Su'aashii ugu dambeysay ee shanaad, maxay xaaladooda noqon kartaa habeenkii la sii galaayo? Walaal waxaa rajeynaya inaad isku dayi doonto su'aalahan jawaabahooda. Bal adigu qiyaas maxay kula noqon kartaa oo xagga commentiga fikirkaada noogu reeb. Si aad arrimahan u ogaato, fadlan la soco qaybta shanaad insha Allah. Walaal haddii aad videogan ka heshay, noo like ree. Inaad share dhaadana ha ka iloobin. Xagga commentigana waxaan ku sugi doonaa adiga fikirkaaga wuxuu yahay. Subscribe noo saar channelkan haddii aad subscribe ku saarneen oo gambalka riix si aad videoyashiina ula socoto oo noqoto qofkii ugu horeeyay daawada videoyasha.